أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحن هذه آدو سلام يا ولا لها قلبك أيك حلا جنك ولا شو فردوس تساني وحن هالعلنا يا الله سبحانه وتعالى ذا العلوم هالعليو الله يسكوك سماي إن المركلة يتكسون نقض waxaan u mahadcelinayaa asxaabtii shalay ugu soo biirtay commentiga caafimaadka qaba iyo soo dirayay iyo daawaday iyo dhamaystirtay iyo kuwii aan dhamaysan intaba waa mar kale oo aan idin leeyahay subscribe like share iyo commentigu waxay iga caawinayaan inaan mar kale wajigayga aad aragtaan maanta waxaan ka hadli doonaa shaqaaqada ka dhacday saynu ogsoonahay bil ayaa waxa socda shaqaaqada shaqaaqada waxa ay dhex martay beelaha Soomaaliland beel kamid ah iyo dawladooda sharafta leh Soomaaliland ayay dhex martay markaas taa waynu wada ogsoonahay ilaahay waxaynu ka baryeynaa maalmaha khayrka qaba maalmaha khayrka qaba ee aynu ku dhex jirno iyo maalmaha soo socda ee barakaysan hadduu ilaahay awood leh inagu simo waxa aynu ilaahay uga baryeynaa in bogooda burcad isku mariyo reer Soomaaliland oo dhan dawladooduna uu ka dhigo dawlad caadil ah oo dadkan warkooda dhageysata una xaqaaqa markaas waxa ka qayb qaadanaya dadyo kala duwan in dabkii iyo colaadii la huriyo dad baa ka qayb qaadanaya dadka ka qayb qaadanaya waxa kamid ah ganacsato waxa kamid ah qurbo joog waxa kamid ah dad kale oo social media ka qaybigu ugu xoog iyagu waaba afku xooglayaal ba kuwaas ugu daran waxa kale oo ka qayb qaadanaya dumar cid kasta intii shaydaanku haleeyay oo dhan ay ka qayb qaadanaysa waxa shalayto la maqlayay masaajidada Kenya kamid ah Sheekh Umal oo la weydiinayo oo uu leeyahay waxa isdilaya reeraha aniga reer kamid ah reerahayaga iyo reeraka iyo dawlad reera kala ah ma ka qayb qaadan karaa oo wuxuu rabaa in loo baneeyo inuu ka qayb qaato maal iyo nafba uu u huro si dambigaas iyo shaqaaqadaas u sii hurto Sheekh Umal waa ka qabtay hadduu ku waana qaadanayo waxa kale oo jira dadyow iyagu social media kamid ah oo ay kamid yihiin dadyow caawinaadooda ogtiin personal attack waxba kuma sameynayno ayaa ka qayb qaadanaya haddaad ogtihiin qofka dambiga galay ee dhiiga daadiyay iyo ka qayb qaatay horta waa isku dambi meelna way wada marayaan meelna waa lagu wada xaadirayaan ka maalkiisa ku bixiya ka waqtigiisa ku bixiya ka carabkiisa iyo juhdigiisa ku saara in dad dhiiga sii daato wali oo ay dad isku baaba'aan dadka ka qayb qaadanaya waa isku dambi ka qoriga sita iyo ka qayb qaadanaya intuba waa isku dambi wax la isku haystaa ma fahmayaba wax weyn oo meesha yaalo la isku haystaaba ma jirto laakiin waa dad shaydaan halaynayo haddaba waxaan maanta soo qaadan doonaa waxa farxiya cabsiye waa gabar social media ka caana waa inan dadka inta badan dhiirigelisa dumarka oo ula baxday nacasta oo dhan taan ka kicin taan horumarka sameyn taan qoyan bay u bixisay halka ay ninka nacaska ah ee danta reerkiisa iyo dadkiisa aan midnaba garanayninna ay ula baxday cabdi qasaare miyuu ahaa saasaan u malaynayaa laakiin qoyan waa muba way ula baxday farxiya cabsiye waa inantan aad sawirkeeda ku arki doontaan tamletka waxa aan dumar baa soo weeraraya farxiya cabsiye sidaad ogsoontihiin labada beelo isma dilayaan hadda waa dawladda Soomaaliland iyo dad ka qayb qaadanaya amniga khalkhal gelinaya oo maanta waxaynu ognahay in meesha kaliyaate ilayska ama nuurka u baxaya Soomaaliyeed ay tahay Soomaaliland ishii nabadeyntu waa halkaas ilantaas dad baa soo weeraray iyagoo ay leeyihiin maxaad ugu hiilin weyday reer abtiga waxa dhalay sida aynu ognahay farxiya cabsiye dhulbahante iyaduna waa gabadh habar jecel ah waxa waa la soo weeraray waxa la leeyahay maxaad u caayi weyday waayo yaa leh kuwii qabiilada caayi jiray ee ku caanbaxay inay qabiilo caayaan inay dab huriyaan inay dadka isku diraan inay wax bahaleeyaan haddaba bal farxiya cabsiye oo u jawaabaysa oo ka xanaaqsan waayo dhibta ay leedahay bay ogtahay dad waa qof caqli leh waa qof cilmi leh waxay ogtahay kale yawmal aakhir marka la tago in lagu weydiinayo
maxaad ka faa'iidaysay maxaad ka istafiiday waxaan waan isku soo noqonay haddana wax yar baan qabanayay inantaa wax kale laguma haysto inantaa farxiya aanu maanta aan ka hadlaynay wax kale laguma haysto waxay ku haystaan maxaad aad u caayi weyday reer adeerada oo aad u caayi aad ugu hilin weyday reer abtiga qabyaaladii meel xun bay naga maraysaa camalkii shaydaanku aad buu inoogu batay bal qofkii ka hadhay isagu ee qabyaaladii intuu iska daayay labadii u arkay dadkan islaynayaaba inay labadiisii garab yihiin labadaada garab keebaad jaraysa keebaad reeban mid aad reebataa mid se aad jeerataa midnaba ma jirto ma garatay marka waxaan leeyahay bal dadka social mediaha ku jiro oo dadka social mediaha ku jira waa dadka kaliyaatee ugu badan ee fitanka iyo mixnada ka qayb qaadanaya ee beenta been abuurka cayda balaayada bal waxaan isla eegi doonaa farxiya uu dheeraaday farxiya cabsiye iyadu cidna ma caydo sida ay sheegtay cidna ma aflagaadayso kaliyaate waxa ay waanisaa oo ay waanisaa xaq weeyaan gabadhaade la yiraahdo magaceeda qoyan bay waanisaa motivation ay u tahay marka waxaan leeyahay bal aan isla eegno farxiya assalaamu calaykum qashimada kala jirin naag dambe oo ku ixtiraamayo reer abtinimo ma jirto ilaa hadday hiil noqoto u hiiliyo reer abtigay waxa kaliya ii dhiman waa isaaq inaan sida iyagu caayaan u caayo oo dee hiilin anigu idinkoo kale ma yihiin naag iyaduba tolkeedu hiilinaysaa she expects me anigu markaa tolka inaan caayo anigu cidna ma caayo dee walaa tolkay baanan caayin walaa tol kalaan cid kalaanan caayin qabiilada ma caayo anigu I'm not like you qoyanay qadmin weyn nolol samaysta taleefon baa halka idinku jira habeen iyo maalin qabyaalad baad ka hadlaysaan waxaad isku dirtaan baad raadinaysaan jaahiladii hay aan waxba daawani ee weligeed wax daawan anigu dee sidaada caliyona iga daadan mayso haddaanad naga leexan